qofku hadduu dhaqaale kaa fiican yahay ma wax walba miyuu kaa fiican yihi hadduu aqoonta maadiga ah kaa badiyo miyuu kaa badiyaa nolosha kale iskuullada waxaa laydin dhigaa jugraafi saxanka maaha jugraafiga marka la sharxayo waxaa la keenaa golob kubad soo saama kubadda laakiin ardaygu dhan walba kama arkayo mar haddaanu dhan walba ka arkaynin waxaa la keenaa maap khariido kala baxsan aynkaa soo maaha iskuul kasta khariidad baa ku taalla dunida ay ku sawirantahay khariidadaasi say u sawirantay ilaa adduunkii kubad buu ahaaye khariidadii marka la kala bixiyey siday u sawirantay waxa ay ku salaysantahay baa la yidhaha halka laga jeexo khariidadani xaggee laga jeexaa u malaynaysaa kama idan fakerin wali haye dhabarkaa laga soo jeexay socankaa maaha dabeetana xaggan waxaa ka muuqda qaaradda maraykan oo is hoos taalla oo in yaroo raashinka uu ka iibsado alaska la yidhaha dacalkaa kaga sii taallo socankaa maaha xagga kanna waxaa ka muuqda far eastkii fogaa saasaa loo dhigaa khariidada saasay u sawirantay dabeetana waxaa dhexda ku dhaca dunida bartamaheeda waxaa ku dhaca yurub oo afrikanada iska hoos taalla uno laakiin yurub baa ku dhex taalla caqliyada ka dambaysa maxay tahay caqliyada ka dambaysa waxa weeyaan london iyo paris waxay doonayaan inay yidhahdaan we are the center of the world annagaa dunida bartankeeda ah qofka rumaysan reerahoodii iyo aabbayaashii inay talin jireen isna wuxuu ismoodaa inuu talin karo qofka laakiin rumaysan weligoodba in la gumaysan jiro cagta hoostooda lagu hayo ay ducafo ahaayeen soomaalidu maxay u qab weyntay reer walba islaantu caruurteeda waxay ugu sheekaysaa berigi ay guulaysteen iyo reerahoodii ber ay qaar kale geel ka qaadeen nin waliba afku taagaya markaa wuxuu isleeyahay idinkuma geela qaadi jiray waayo reer walba islaamtu ilmahan yar uga sheekaysay intii geela awowyadoodu qaaday iyo goobahay wax dhiciyeen iyo goobahay jabeen ninna looga sheegin beri dambe aad weynaatun baad ogaanaysaa beryo reerkiina la jabiyey laakiin waxa ka dambeeyay tarbiyadani waxay ahayd in qofkan yari inuu meel raganimo taalla ka dhashay in la baro therefore uu yidhaahdo mustaqbalka adna waxbaad qaban kartaa iminka ninka boqorku dhalay dee wuxuunbuu isu diyaarinaya inuu boqor noqdo soo maaha waa uu qof ka fekeraya inuu boqor noqdo laakiin ninka uu mid dhulka fiiqa dee wuxuunbuu isu diyaarinayaa isna inuu sanadka dambe fiiqo dabcan haddii qaabka loo tarengareeyo oo caynkan yahay waxaan leenahay mushkiladda koowaad ayna haysataa waxa weeyaan qaabkaynu dunida u aragno ama u sawirayno ama inoogu muuqataa qaab aan jirina war waa inay ogsoonaataan boqorada iyo dunida inay idinku tihiin idinkaa muslima adaa muslima muslim baa tahay macnaheedu waxa weeyaan rabbigii dunidan lahaabaad u hogaansanaatay idan inta dambe waa inay kugu soo daba fayshaa aragtidaa haddaad rumaysantaho mas-uuliyad intaa leegaad nolosha ka rumaysan tahay something waxbaad qabanaysaa markaa waxbaanad soo saaraysaa qof mustaqbalana waad noqonaysaa cid kasta oo nool oo bini aadama oo khudad degta oo naftooda kalsooni ku qaba naftooda iyo dadkooda kalsooni ku qaba mustaqbalkooda way wanaajin karaan ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay qisada nebi yuusuf waxay ka warramaysaa qisas badan oo kale qur-aankaa ku jira laakiin tan waxaanu soo qaatuun waa qiso mustaqbalka ka warramaysa 14 sannadood oo soo socda ama 15 sannadood oo soo socda waddankaa sidii loo badbaadin lahaa ayuha alaxiba waxaan ku soo koobayaa waqtigii la siiyey waa gabagabo waxaan ku soo koobayaa oo quri waxa weeyaan khidadeenna waxay u baahan tahay kow alla ka cabsi laba waxay u baahan tahay alictimaad cala nafs dowlad heblaayana taageeraysa iyo meel kalean raadinay waxba kama jiraan dalkaaga iyo dadkaaga iyo awooddaada iyo caqligaaga iyo xooggaaga iyo cilmigaaga inaad isticmaasho alictimaad cala nafs والثقة بنفس كالسوني inaad isku qabto inaad wax noqon kartid